maanta waxa weeye halkaynu marayno iyo halkeen laynaga doonayey maalintii aynu dalkeena qabsannay ee soo xoroonay iyo maalintii Ethiopia ay TBR qabtay Tigreega jabadoodu waysan inaa ka soo horeynay maanta magaalada Addis Ababa aragtay New York oo yakaatay Imaaraadka oo yakaatay bal magaaladina si way taagay caasimadeena dhalinyarteena 779 waa dhalinyaro iskuul ma galaan suuqay taagan yihiin maxaynu shaqo ma abuurnay waxaynu ku nooleen rajaynu ku nooleen higsanina inagoo saa u soo jeedna ayaa kursigii United Nationska Soomaaliya aan jirin la fadhiisay waa kursigana inuu nabadeenu Soomaaliya wada jir u dalbanay in kursi la siiyo inagoo Somali Republic iyagoo Somali Federal la baxay Soomaaliya Federal la baxay maanta kursi la siiyay dawlad bay inagu heen Puntland ma jirtay markii inagoo dawladnimada qabsanay ma jirin Federal government ma jirtay ma jirin maxaa inagu qabsanay waxaynu ka dhignay in meel Soomaaliya lagu aytamo qabyaalad jiifto wax ka xaraan aan jirin dadkeen waa samreen waana markaan hadana aboolashaasina shacabka reer Soomaaliya intaas ba aan la siinay hadana in la shaqeynay wadada dhisanay waxaas laga baxaya waxa weeye inagoo midowna mar dambe godkii dhixda aan ku dhicin dawlad aan jirin oo ashiye ilaaliyo afar yar ayaa maanta meel ka soo doonay inaga soo baabiyaan inaga isku maqan dalkan nabadgelya lagu waday labadan sano ee nimanka soo dhaafnayna gadaal baynu soconnaa waa inaan isku sheegnaa runta badbaadu dalkan maanta u baahan wuxuu baahan yahay dalkan maanta soo ku socdo 2 sanadood in ku arkinay 3 sano kale ku socon maayo inagoo cidno inoo gudaheena ku dumina waxaad ku soo darsantay caga jugleyn iyo hanjabaad iyo baarlamaankii iyo sharcigii jurusharigii iyo executive mid noqday hal mid noqday wada lahaanshiyo geesku ka raran oo beelihii kale ay dibadda ka taagan yihiin lama arag dal la wada leeyahay oo qowmiyad quri ama qabiil quri wada qaato afartii rukun oo waaweynaa maxkamadii oo jurusharigii iyo executive haga lagu arkay inay beesha dhex yeelato judge-kii judiciary iyo executive kursigaas harsan magaalada baarlamaanka oo isna yaa haya cidaan cidba ka metelay distoorkeen muu ku jira hal isxambaaro xeerkeen muu jira hal isxambaaro kuma jiro haddana waxaynu dambeeynu moodnay si looga wada muuqdo marka waxa weeye doorasho waa ina dhacdaa bisha 10keeda waa spirito ma ogolaanino inuu fadhiyo baarlamaan aan sharci ahayn doolka kunsan aan sharci ahayn guurti aan sharci ahayn adduunkuna ma ogolaanino ma ogolaanino danteena maaha lacagta qaataan baarlamaanku mushaharka qaataan iyo mushaharka dawladda hoose qaataan haddii maanta la yiraahdo 10 bilood gudaheeda ku dhacdo doorashadu 10 bilood mushaharkooda haddaynu magaalooyinkeena gelino oo in 15 burca ka soo baxay MP'yad ahaa mushaharkoodii la geliyo dawladda oo kuwii dawladda hoose 20 ka soo baxay mushaharka qaataan la geliyo burco way isbedelayeen maxaynu u bixinaa maxaynu u siinaa mushaharka bal i weydiiya adeer dal waxa lagu dhisaa wax sharci baa lagu dhisaa maslaxaad iyo hanjabaad iyo qabiil iyo reer hebel iyo jojo waxaas waa wixii ay SN u sameeyay weyday iyadoo dawladda iyadoo jabhad oo kala sareysay dalka u qabsan weyday iyagoo habqada xaafada ay u soo galeen tii in lagu celiyo doonmeen Soomaaliya qaaxil lagu celiyo doonmeen hargeysa in qaaxil laga dhigo doonmeen lagu dul hargeysa la dhex murmuro hargeysa no ma ogolaansan hargeysa in lagu dhex murmuro wadankan loo shaqeeynin ma ogolaansan oo anaga Muuse bixiya afarta kale isiriina ma ogolaansan loox la aqbal kale maaha dalkan amba waa la wada wadi shaqeyn karaa amba waa la kala tashanaya nin qof amriya ma jiro wax la wada leeyahay baa lagu tashay waan la wada yeeshaa Soomaaliland kala leeyahay ma jiriso sirta idin sheegnaa wassalaamu calaykum